بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ciyaaraha goobjoog oo aanaba aan ku faaqino maanta oo kale dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadlaha ah ee ka dhaca kubadda cagta ayaan alaba marka loo eego kusoo afmarinaa toddobaadkan waxaanan maanta eegi doonaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan Premier League ka dhacay Spain la liigaha dabaaldegii kooxda Real Madrid ayaan dul istaagi doonaa wararka suuqana waan eegi doonaa horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League toddobaadkan kulankii weynaa ee Tottenham iyo Manchester City kaasi oo macallin Pep Guardiola oo xaqiijin gaaray in horyaalka laga qaaday laakiin ugu dambeyn kooxdaasi ayaa iyagu guusha heshay hadda wax walba ku aadan toddobaadka Premier League oo axad soo gabagabeynayo Arsenal rajadeeda Manchester City oo horyaalkii afraad u socota iyo wax walba ku aadan horyaalkaasi ayaan dul istaagi doonaa dhan walbaan ka istaagi doonaa goollalinta horyaalka Premier League xidiga ugu fiican Premier League oo isna lagu dhawaaqayo iyo abaalmarinada kala duwan kooxda Manchester United macallinkooda Ten Hag oo isagu toddobaadkan xaqiijiyay ballanqaadna u sameeyay taageerayaasha kooxdaasi kadib markii kooxdu ay guul ka heshay naadiga Newcastle United haddaba ballanqaadkaas waxa uu yahay oo toddobaadkan isagu microfonka oo taageerayaasha la hor istaagay ayaan salamada eegi doonaa guud ahaan kubadda cagta Yurub horyaaladeeda oo la soo gabagabeynayo ayaan eegi doonaa hal horyaal oo kaliya ayaa harsan haddaba salamada waan eegi doonaa dhanka Turkiga naadiga Galatasaray iyo Fenerbahce ayaa isku haya horyaalkaas hal kulan oo kaliya ayaa ka harsan dhibcaha ay kala heystaan iyo dagaalka labadaas naadi ayaan salamada dul istaagi doonaa dhacdooyinka kale ee kubadda cagta sida Ballon d'Or-kii 2020 isagu ninka la yiraahdo Robert Lewandowski loo diiday oo mar kale la leeyahay dib ayaa loo bixinayaa salamada waan soo qaadan doonaa sheekooyinkaas oo idil ayaad ku daawan doontaan barnaamijka ee soo dhawaada kulan wacan mar kale daawadayaal aynu ku bilowno macallinka kooxda kubadda cagta Liverpool Johan Klopp ayaa kulanka axadda kooxdiisa oo ciyaarayso uu yahay kulankii ugu dambeeyay ee waayihiisa kooxda Liverpool oo hogaamin doono 490 kulan ayuu leeliyay kooxdan isagoo 298 kamid ah guulsi kooxdiisa intuu hogaaminayay macallinkan waxa ay dhalisay 1028 gool ayay dhalisay isagoo 8 koobna gacanta u geliyay waana rikoor weyn oo macallinka reer Jarmal oo kooxdiisa ugu soo galiyay waana kulankii ugu dambeeyay ee isagoo macallin ah oo garoonka Anfield isagoo oo ka aramin doono ciyaarta ugu dambeysay ee horyaalka Premier League ama kulanka 38aad ee horyaalka Premier League ee kooxdiisu ciyaarayso dhanka kalena hadii aynu eegno naadiyada wadanka Turkiga ah ee Galatasaray iyo Fenerbahce ayaa ku dagaalamaya horyaalka wadankaasi iyagoo labada naadiba doonaya in midkood uu ku guuleysto naadiga Fenerbahce ee wadanka Turkiga ayaa iyagu waxa ay leeyihiin 93 dhibcood halka kooxda Galatasaray ay leedahay 99 dhibcood iyaga oo ku dagaalamaya ama kulanka ugu dambeeya ama kulankooda uu imaanayo iyaga oo axadda dagaalami doona dhanka kalena naadiga kubadda cagta ee Arsenal ayuu toddobaadkani u yahay toddobaad xasuus mudan waana 20 sano ka hor toddobaadkan oo kale ay ku guuleysteen horyaalka wadanka Ingiriiska ee Premier League iyagoo aan dhinacooda dhulka la dhigin waxaana markan ay doonayaan in ay soo afmeeraan rajada muddo dheer la sugay 20 sano ka hor ayay sameeyeen wax koox kale oo horyaalka Premier League ayna sameyn iyagoo guul darro la'aan ku qaaday horyaalka Premier League 38 kulan oo ay ciyaareen 16 ama 26 kamid ay guuleysteen 12 kalena barbara ayay qaateen taasoo ka dhigan in ay tahay kooxda kaliya ee Premier League ka ciyaarta ee iyagu haysata horyaalka ama koobka Premier League oo dahab ah geesi kalena hadaan eegno toddobaadkan waxa dib loo soo faqooqayaa ama dib loo soo qodayaa ama warbaahinadu ay soo qaadanayaan Ballon d'Or-kii marka loo eego ama jaa-isada France Football marka loo eego ay bixiso ee Ballon d'Or la yiraahdo 2020 markaasi oo dhibaato badan oo dunida ay ka jirtay oo coronavirus waxa abaalmarintan isagu ugu cadcada ama loo arkay ninka ugu qatarta badan Robert Lewandowski oo kooxdiisa wax walba u sameeyay isla markaana abaalmarinta aan la bixin sanadkaasi waxaana la leeyahay waxa marka loo eego wargeyska ciyaaraha uu leeyahay
in dib loo sii karo ninka la yiraahdo Robert Lewandowski abaalmarintaasi Ballon d'Or. waana sheeko farxad u ah xidigan waayihiisa maadaama uu sanad cajiib qaatay. dhanka kalena haddaan eegno Premier League wuxuu marayaa meelihii ugu dambeeyay, hal kulan oo kaliya ayaana ka harsan, waxaana Manchester City hogaanka u haysaa koox walba oo ka tirsan 20 kooxood ee Premier League-na waxay haystaan ama ay iyagu ciyaareen 37 kulan. saddexdii kooxood ee horyaalkan usoo dalacay ayaa saddexdooduba ka haray, waa Sheffield United, Burnley iyo Luton, oo iyagu guul darooyinka marka laga soo tago goolasha laga dhaliyay ay yihiin wax dhanka farax, sababtoo ah naadiga kubadda cagta ee Sheffield oo horyaalka ugu hooseysa 37 kulan oo ay Premier League ka ciyaartay 66 gool ayaa laga dhaliyay. dhanka kalena haddii aan eegno xidiga Turkiga ah ee kooxda Real Madrid isagoo qaybta ka ah ee Arda Güler la yiraahdo ayaa la barbar dhigay xidigii hore ee isla Real Madrid ninka la yiraahdo Eden Hazard oo isagu lacaga waali ah kooxdan ugu yimid laakiin wax matara ku noqday. macnaha waxa uu ku qaatay sanado badan oo ilaa 4 sano gaaraya, laakiin waxa uu marka loo eego waqtigiisa inta ugu badan ku qaatay dibadda garoonka oo dhaawac ayaa xidigan dilooday, isla markaana foomkii uu ku haystay garoonka Stamford Bridge oo Chelsea ay ku ciyaartay isagoo ka lumiyay. waxaana xidigan kulamo badan oo isagu 100 ku dhow u ciyaaray oo kaliya 4 gool u dhaliyay, halka Arda Güler oo isagu 8 kulan kaliya u ciyaaray kooxdaasi isna 4 gool u dhaliyay. waliba kursiga keedka ahaa waayihiisa inta ugu badan, isla markaana macallin Carlo Ancelotti aad loogu dhaliilay xitaa qaabka fursad siinta xidigan, maadaama horyaalka ay ku guuleysteen in xidigan line up laga dhigo, isla markaana uu fursadiisa inta ugu badan uu helo wiilka da'da yar ee Turkiga ah ee Arda Güler la yiraahdo. laakiin ma aysan noqon oo xidigan, laakiin kulan walba uu soo galo isagu waa mid wacdareeya oo isagu dhaqaaq ka sameeya horyaalka wadanka Spain ee La Liga. isla horyaalka wadanka Spain ee La Liga haddaan eegno naadiga Real Madrid ayaa toddobaadkan dibadda u soo baxday oo iyagu taageerayaashooda kula hordabaaldegay, microphone-kana la wadaagay marka loo eego, isla markaana la hadlay taageerayaashooda wadooyinka magaalada Madrid ee caasimadda wadanka Spain. waxay toddobaadkii hore u dabaaldegeen horyaalkii 36aad ee wadanka Spain kadib markii naadigaasi ay guul heshay, isla markaana Girona ay guul darro ka qaadatay naadiga Barcelona, waxaana taa ay ka dhigtay in horyaalkii 36aad ay u dabaaldegaan iyagoo xasuusan xitaa inay joogaan finaalka Champions League oo isagu Wembley ka dhici doona. naadiga Borussia Dortmund ku madalsan ciyaarta ugu dambeysa ee 1 June bishan ugu soo fool leh ay wada ciyaari doonaan. haddaba taageerayaasha ayaa iyagu waxa ay lagu arkayay iyaga oo banaanka ku sawiranaya xidiga haatan la xiriirinayo kooxdaasi ee Kylian Mbappe, kaasi oo ay taageerayaashu ku sii sawiranayaan isagoo qaab dabaaldegiisii leh. macnaha markii uu dabaaldegayo ninkan Kylian Mbappe saas ayuu macnaha dabaaldeg ah ayuu gashtaa. marka Mbappe oo saas dhahaya ayay ku soo sawirteen marka loo eego wadooyinka hore ama halka laga garo garoonkaasi Santiago Bernabeu iyo halka uu dabaaldega horyaalka wadanka Spain kooxda ku guuleysatay ee Madrid uu ka dhacay.